xogaye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud Maxamed Khadar Daahir ayaa munaasabad qada sharaf u sameeyay mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi qada sharafta gudoomiyaha xisbiga Ucud Jineer Faysal Cali Waraabe iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi qada sharaftani ayaa daaranayd isbarasho iyo waliba isxog waraysi ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xogaye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud Maxamed Khadar Daahir iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi maanta waxay ii tahay sharaf iyo waxay ii tahay runtii yididiilo cusub xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud oo maanta aan afkiisii ku hadlayo waxaan leeyahay waa mahadsantihiin soo dhawaada marka koobaad marxalad cusub baynu imika gelaynaa marxaladii kaambeenka way dhamaatay wixii la kala helay iyo wixii waa guushii meesha bay taallaa laakiin guushii waxay u baahan tahay inaan halkaa aanan ku ekaan inaynu xisbiga dhisno runtii aan joogay meesha ama ay shirarkii ugu dambeeyey la qabanayay ayaa waxaan aad u yaqiinsaday in xisbiga u cud yahay the alternative xisbiga kaliya ee maanta haanan kara wadanka rafay noo tahay karaamay noo tahay in maanta lagu maamuso xogayaha guud ee xisbiga Ucud ee cadaaladda daryeelka xildhibaan maxamed Khadar Daahir oo gobol ka soo wada jeedno saaxil oo aad u garanay familkiisa aad baan ugu mahad celinayaa xisbinimaduna ma aha wax dhib yar Soomaaliland qofka xisbi gacanta ku soo hayay 20 sano ma aha wax dhib yar xisbigu uu dhib badan yahay markaad eegto dadkiina maanta halku marayo iyo qaabku u socdo ragii musharaxiinta ahaa saddex bilood bay xaji kari waayeen inay bahasha xajistaan rag baa sanad xaji kari waayay rag baa iskaba yaacay markii 2 sano marayaan bahashiba ka noqday marka waxa weeye ninka xisbi hayn kara waa nin adag runtii Soomaaliland gunaanadkii munaasabadaasi waxa ka hadlay injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe ku-xigeenka xildhibaanka Maxamed Khadar waa mahadsan yahay warinta hadoo shaqada la bilaaween dadka la wada shaqeyn la isbartaa weeye maanta way fadhigii horeey qabsadeen waladii baarlamaanku si fiican buu imaka u wada Cabdirasaaq alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan jecelahay inay ay qaladaadkii ku hore ay ka faa'iideystaan lesson learning ay sameeyaan